بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمعة ونكسن ميل كستو جوجتان. جمعة ربي خير كده نسوا دي كسر واد وربحين جارة وان ديرد كسارينه هل ولاع أم هل أرين أو حد صاب حسين إسرائيل كولاع سنتهاي كدب دور الشدي مدحونه لدورتي أمريكان كدونالد ترامب. إسرائيل وحيسكو أركيسي مركي صاب حد نتيجة دي دور الشد أمريكان كأول حقيقي إنه كقول استي دونالد ترامب. إذا فائدة أوجو بدن كوقبته. صوب الحرير إن دونالد ترامب وحق ليه لنا إسرائيل إلا لاركي عيد مدى إسرائيل kusugan marinka Gaza halkaas waxa suuq ka geysanayaan oo u dabaaldegaya doorashada Trump kuwaas oo rasaas badan u riday iyagoo soo dhaweynaya kuna faraxsan in Donald Trump uu ku soo laabtay aqalka cad. Haddaba warbixintan ayaan diradda ku saarnaa hadda hal walaac oo Israel ay arkayso in ay halis ku tahay hoosna u dhici karto saameynta ku leedahay Trump. Wargeyska Financial Times ayaa Jimcaha maanta waxa uu baahiyay in Jared Kushner oo asal ahaan Yahuudi ah oo saddex u yahay madaxweynaha la doortay Mareykanka ee Donald Trump inuu ku soo laaban doono aqalka cad oo san xil ka qaban doono maamulka cusub ee Trump. Laakiin wargeys Mareykan ah ayaa isagoo tixraacaya waxa uu tilmaamay dad xogaal ah inay u sheegeen Kushner in laga yaabo inuu bixiyo talooyin ku saabsan arrimaha bariga dhexe. Jared Kushner oo saddex u yahay madaxweynaha la doortay dalka Mareykanka Trump ayaa ganacsada daayiro Mareykan oo hantidiisa ka helay hanti maguurta oo Trump u magacaabay markii ugu horeysay inuu la taliye ka noqdo aqalka cad. Wuxuu caan ku ahaa saameynta weyn uu ku lahaa xilligii hore ee Trump uu madaxweynaha noqday ilaa uu John Bolton oo ahaa la taliyihii amniga qaranka Mareykanka xilligii Trump uu yiri dad badan ayaa Trump saameyn ku leh laakiin hal arrin ma jirto saameynta uu Jared Kushner ku leeyahay Trump cid kale oo ku leh. Intuu Trump madaxweynaha ahaa inkan uu saddex u yahay Trump ayaa lagu sheegay inuu ahaa maskaxdii ka dambeysay isla markaana dhistay hindisihii heshiiska Ibrahim ee loo caadiyeynayay xiriirka isla markaana xiriir dulmaasi ay yeelanayeen Israel iyo dalalka Carabta. Madaxweynaha Trump ayaana heshiiskaasi wuxuu wax badan u taray Israel taasoo dhalisay in dalal badan oo Carabeed oo Imaaraadka, Morocco, Bahrain iyo kuwo kale ay ka mid yihiin inay xiriir dulmaasi la yeeshaan. Saameynta weyn ee heshiiskaasna waxa uu dhaliyay in awoodii Israel ay bariga dhexe ay isra marto taasoo dhalisay hadda inay Carabtu indhaha ka xirtaan dhagahana ay ka dabooshaan xasuuqa aan hore loo arag ee Israel ay ka geysanayso marinka Gaza iyo hadda dhulka Lebanon ay duqeymo culus Israel ka wado. Dabeeqadii bishii March Jared Kushner waxa uu sheegay in Israel ay qasab ku tahay inay masaafuriso dadka rayidka ah intay ku guda jirto howlgalkeeda ay ka wado marinka Gaza. Wuxuuna ugu yeeray nadiifinta marinka Gaza ee iska caabinta Falastiiniyiinta ilaa uu lama deegaanka Nagaf ama Masar ku sheegay in loo baahan yahay in dadka reer Gaza loo qixiyo. Tanina waxa ay muujinaysay booska xaq jirka ah ee ninkan uu ka joogo xasuuqa Israel ka wada marinka Gaza. Oraahda Kushner oo qoray wargeyska The Guardian ee ka soo baxay dalka Ingiriiska waxa uu ka sheegay kulan ka dhacay jaamacadda Harvard ee Mareykanka. Wargeyska ayaa isagoo faahfaahin ka bixinaya waxa uu sheegay in hadallada Kushner ay iftiiminayaan siyaasadda bariga dhexe ee Trump haddii uu ku laabtay aqalka cad taasi oo ka dhigan in markaasi Trump uu u dhaqan gelin doono isla markaana u xirxiri doono dunida kale in Israel ay geysato waxa ay doonayso sana maraysana xasuuqan hore la arag ee mar horeba ay ka geysatay marinka Gaza. Ninkan aad ka xaq jirka u ah ee Kushner oo saddex u yahay Trump ayaa isagoo sii hadlaya waxa uu sheegay in haddii uu yahay sargaal ka tirsan Israel uu mudnaan siin lahaa in dadka rayidka laga saaro magaalada Rafah ee koonfurta marinka Gaza iyo in diblomaasiyad ahaan ay suurtagal tahay in laga dhaadhiciyo Masar in dadkaasi ay dibadejin u samayso. Isagoo raaciyay waxaan cagaf gelin lahaa aaga Nagaf waa aag saxara ah oo ku yaala duleedka dhinaca koonfureed ee marinka Gaza. Wuxuuna sheegay waxaan isku dayi lahaa inaan halkaas dadka u raro. Kushner ayaa mar kale soo laabtay dabeeqadii bishii September ee soo dhaaftay isagoo ka falcelinaya dilkii xogayihii guud ee ururka Hezbollah ee Hassan Nasrallah oo September 27 Israel ay ku dishay koonfurta Beirut. Isagoo markaa ku tilmaamay in tani ay tahay maalinta ugu muhiimsan ee bariga dhexe tan iyo markii la saxay buu yiri heshiiskii Ibrahim oo heshiis fikradiisu isagu lahaa. Waxa uu sheegay in cid kasta oo ku baaqaysa in xabjajin laga sameeyo waqooyiga marinka Gaza inay tahay mid khaldan isla markaana aysan jirin meel ay Israel dib ugu gurato maadaama aysan hadda awoodi karin buu yiri in la dhameystiro howlgalka iyo gabi ahaanba in la burburiyo hubka ku soo wajahan ayna taasi dhici doonto weligaa ha bixin fursad kale ayuu yiri. Wuxuu ku doonxusaday in talaabada saxda ah ee hadda Mareykanku ay tahay inay Israel ka codsato inay dhameyso howlgalka maadaama ay muddo dheer soo dahday. Tanina ma ahan buu yiri dagaalka Israel oo kaliya. Waxa muuqata in maqnaanshaha Kushner ee kooxda Trump laaca ku kordhinaysa Israel. Qoraaga wargeyska Yaacdad Ahronos ee Ron Binfash ayaa sheegay in Kushner uusan mar kale ku biiri doonin kooxda Trump ee madaxweynaha labaad. taasina waa in ay u walwashaa buu yiri Israel sababtoo ah waxay ka dhigan tahay qasaaro weyn
oo Israel soo gaaray. Saamaynta Kushner ayaa si weyn ugu xaglinaysa Israel marka laga hadlayo arrimaha bariga dhexe. Muddo xilliyeedkii hore ee Trump, markaas uu ninkan ahaa ninka ugu saamaynta weyn marka laga hadlayo dadka saamaynta kale Trump. Qoraaga wuxuu tilmaamay in ay adag tahay in la saadaaliyo ajandaha siyaasadeed ee Trump marka loo eego dabacadiisa isbedbedesha iyo in uu gabadhiisa Ivanka iyo weliba wiilka uu sodog u yahay Kushner ay door weyn ka qaadatay waxay Israel u aragto guulaha sida heshiiskii Ibrahim iyo in safaaradda Mareykanka loo raro Qudus loona aqoonsado Israel inay leedahay buuraha Golan ee dhulka Syria. Arrimahan oo dhan waxa la sheegay inay ahaayeen waxa ay ku heshay Israel in uu nidaamkii Trump ee muddaxileedka hore uu saameyn ku lahaa ninkan uu Trump sodog u yahay Kushner, kaasoo sidoo kalena adeegsanayay isla gabadha uu Trump dhalay Ivanka oo xaaskiisa. Hadda qoraagan wargeyska Yacdid Ahronos ee kasoo baxa Israel ayaa sheegaya in ay mar horeba dhadhaminayso Israel inay khasaaro ku tahay soo laabashada Trump, sababtoo ah buu yiri in aqalka cad uusan wax xil ka haynin. Kushner waxa ay hoos u dhigaysaa buu yiri saameyntii Israel ku leedahay aqalka cad, maadaama ninkan haddii aan xil sax loo magacaabin aysan talooyinkiisa noqon karin kuwa dhaqan gala, sidoo kalena ay ku adkaanayso inuu markasta heli karo inuu gudaha u galo aqalka cad. taasoo jirta ayaa haddana qoraaga wuxuu aaminsan yahay marka loo eego dabeecadda Trump inaan la isku halayn karin oo ay suuragal tahay xilli walba inay isbedelo dhacaan, balse wuxuu sheegay Israel mar horeba in ay farta qaniinayso oo ay dareemayso in ay guuldarro dhadhaminayso xilli hore sababo la xiriira maqnaanshaha ninkan. Kana wuxuu ahaabaa la yiri qofkii ugu muhiimsanaa ee u suurageliyay Israel in ay saameynteeda bariga dhexe sare mariso, sababo la xiriira inuu ninkan lahaa fikradihii Trump ka dhaadhiciyay inuu gacan ku siiyo Israel in safaaradda Mareykanka ee ku taalay Tel Aviv loo soo raro Qudus si markaa lagu aqoonsado Qudus oo ku yaala masjidka saddexaad ee ugu barakada badan muslimiinta caasimadda Israel. Sidoo kalena waxa uu suuragalay isla waqtigaas in buuraha Golan ee dhulka Syria in loo aqoonsado dhul ay Israel leedahay. taasoo jirta ayaa hadda waxyaabaha ay raadinaysay Israel waxaa ka mid ah oo Trumpna laga maqlay inta ololaha ku jiray in guud ahaan daanta galbeed ee la haystay Falastiiniyiinta oo Mareykanku u aqoonsado dhul ay Israel leedahay, taasi oo u fududeynaysa Israel in ay ka rarto Falastiiniyiinta isla markaana ka barakayso. Xaaladuhu ma ahan kuwa xilli hore la qiyaasi karo sabab la xiriira isbeddelka Trump. Markasta waxa si cad loo og yahay in Trump uu xaglin doono Israelna ay gali doonto waaye ay u aragto inay yihiin waayaheedu ugu wanaagsanaa. Sabab la xiriira waxay heli doontaa taageero aan qarsoonayn oo dhinaca Mareykanka. Dabalkaas ee Mareykanka ka helaysana wuxuu u suuragelinayaa inay sara mariso waxyaabaan horay adduunyada looga maqal inay ku sii socoto xasuuqeeda ay sara mariso. Markaan ku soo laabana Trump wuxuu bilaabay magacaabadiisa ugu horeysay. Madaxweynaha la doortay Mareykanka Donald Trump ayaa wax la sheegay inuu ku dhawaaqay in Susanna Wiles oo horay u ahayd marayihii ololihiisa doorashada inuu hadda u magacaabay madaxa shaqaalaha aqalka cad ama jagada afka qalaad lagu yiraahdo Chief of Staff, taasi oo noqonaysa magacaabista ugu horeysay maamulkiisa cusub. haweeneydana waxaa mar raba la arkayaa inay saameyn weyn ku lahaanayso Trump maadaama iyadoo ay maamulayso howlaha shaqo ee gudaha aqalka cad. Warbixinteena gaarka ah intaas inoogu eegado mana falanqeyno iyo warbixino dheeraad oo la xiriira waxyaabaha uu sabab noqon karo Trump iyo isbedelada dunida laga filan karo gaar ahaan bariga dhexe ayaan warbixino taxanayaal hadduu idinka siin doonaa. Intaanu markale kulmayno sidaas iyo amaan Allah.